bal si daacad ah aan uga jawaabno su'aashaan. Ma jirtaa mar aad horumar samaysay, tallaabo aad hore u qaaday, naftaada dhistay, laakiin qofkii ama dadkii aad islahayd way kugu farxi doonaan aad ka dareentay qabow iyo ismogaysiin, ama hadallo ku niyad jebinaya oo aan guushaada waxba ka soo qaadin, ama qof kuu dhow oo si qarsoodi ah hoos u dhigaya naftaada adiguna aadan dareensanayn. dabcan way dhacdaa, waana sunnada nolosha. in nolosha kula kulansiiso dad nuucan oo kale ah waa iska caadi. mararka qaar qofka ugu khatarta badan noloshaada ma ahan cadow kaa fog, balse inta badan wuxuu noqdaa cadow kuu dhow, kula jooga, kula dhoola caddeeya, laakiin qalbigiisa uu ka xun yahay horumarkaaga iyo riyooyinka aad leedahay. marka aad go'aansato inaad isbeddel samayso, inaad ka baxdo heerka aad joogta maanta, inaad noqoto qof ka fiican shalay, waxaa qasab ah inaad la kulanto caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin dadku xasdaya oo naftaada marnaba aan u quurin inay horumar gaarto. laakiin